waxaana wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta dahsoon oo aynu daaha kaga qaadayno qodobo ay ka mid yihiin xiisadii dhanka xuduudda ee Suudaan iyo Itoobiya oo kursi kacaysa. Itoobiya oo ka dalbatay Suudaan inay ciidankeeda dib uga baxdo deegaanadii ay soo galeen bishii November. dhinac saddexaadna ku eedeysay inuu fidmada sii hurinayo. xiisadaana uga faa'iidaysatay qaab diblomaasiyadeed oo gundheer. iyo Suudaan oo ku adkaysatay inaanay marnaba ka tanaasuli doonin xuquuqdeeda dhuleed. macluumaad kale ayaa raaci doona ku soo dhawaada barnaamijka. xuduudda Itoobiya iyo Suudaan ayaa maalinba xigta ku sii dhawaanaysa inuu iska horimaad rasmi ku dhex maro ciidamada labada dawladood. xuduudda oo khilaafka ka taagan ku qotomo mulkiga dhulbeereedka halka ku yaala oo ay Suudaanna sheeganayso inuu ciideeda ka mid yahay. Itoobiyana ku doodayso inaan xuduuddaasi dhammaystiran loo calaamadin oo heshiiskii 1902 uu ahaa mid isfaham oo muujinayay maamka xuduudda laakiin aan ficil ahaan loo gelin dhammaystirkii hawsha calaamadinta xuduudda. isla markaana halkii lagu dejiyay khariidada xuduudda ee waqtiga aanay wakiilo Itoobiya ka socdaaba ku sugnaa. dadweynaha Itoobiyaanka ahaa ee mantaqada ku noolaa waxay ku adkaysanayaan inay 20 sanadood beeranayeen dhulka xuduudda ku teedsan oo had iyo goor ay iskaba dhici jireen khilaafaad gobolka ka koobnaa. laakiin aanay wixii bishii November 2020 ka horreeyay aanay marnaba arag weerar la mid ah kii ciidamada militariga Suudaan soo qaadeen xilli aanay ciidamo Itoobiya leedahay ku sugnayn halka sida ay hadalkooda u dhigeen. mas'uuliyiinta gobolka Amxaarada ee dalka Itoobiya oo qaarkood la hadleen telefishinka Al Jazeera waxa ay howlgalka militariga Suudaan ee xuduudda ku sufeeyeen mid ka baxsan dhammaan heshiisyadii labada dawladood hore u wada galeen oo ay ka mid ahaayeen heshiiskii 1972 ee dhigayay in dib loo calaamadiyo xuduudda iyadoo marka hore qaab saaxiibtinimo lagu xallinayo khilaafaadka dhex yaala dadweynaha beeraleyda ee labada dhinac. iyo weliba bay yiraahdeen heshiiskii 2005 ee dhigayay in xaaladda xuduudda lagu daayo sidaa ay ahayd tan iyo inta laga gaarayo xal waara oo kama dambaysa. waana xilli dadka la socda xiisadda gobolkaasi ay aaminsan yihiin in isbedelada dhacaya maalinba xigtaa ay dhabaha u xaadi karaan inay daqiiqad walba xaaladdu faraha ka baxdo iyadoo weliba cadaawadii iyo isnacaybsigii dhex maray beeraleyda labada wadan ee xuduudda ku teedsani ay saliid ku soo shubi karto labada khilaaf ee kale ee waaweyn ee Suudaan iyo Itoobiya ay qaybta ka yihiin ee kala ah ka shaqaysiinta biyo-xidheenka weyn ee Itoobiya iyo qaybsiga biyaha webiga Niilka. iyadoo weliba Itoobiya ku eedeynaysa inuu khilaafka xuduudda sii ololinayo dhinac saddexaad oo aanay magacaabin laakiin ay dadweynaha caamka ee Itoobiyaanku barahooda xidhiidhka bulshada eedeymo badan ugu jeedinayaan xukuumadda Qaahira oo ay dusha ka saarayaan mas'uuliyadda xiisadda ku kacsan ama ka kacsan xuduudda dalkooda iyo Suudaan. wafdi sare oo Suudaaniyiina ayaa January 14 waxay booqasho degdeg ah ku tageen magaalada Qaahira waxaana ay la kulmeen madaxweyne Cabdilfataax Siisi kuwaas oo ka wada hadlay isbedelada dhanka xuduudaha ee u dhaxeeya Suudaan iyo Itoobiya. kulanka kadib Suudaan waxay si toos ah ugu dhawaaqday inay mamnuucayso duulimaadyada rayidka iyo kuwa militariga ee hawada gobolka Qadaariif ee xadka ay la wadaagaan Itoobiya taasoo keentay su'aalo in la iska weydiiyo saamaynta ay Masar ku yeelan karto khilaafka xuduudda ka jira iyo inay jirto in Masar ay u adeegsanayso Suudaan inay ku cadaadiso Itoobiya oo ay xiisadda biyo-xidheenka ay ka dhaxayso. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Diini Mufti waxa uu cadeeyay in Itoobiya aanay wada hadal kala gelin Suudaan xalinta khilaafka xuduudda haddii buu yiri aanay marka hore ciidankeeda dib uga saarin deegaanadii ay soo galeen wixii ka dambeeyay 6 bishii November ee sanadkii hore. waxaana uu diiday Mr Mufti jiritaanka wax heshiis oo ogolaanaya inay ciidamada Suudaan deegaanada soo galaan. dhanka kalena Siciid Taawa oo ka tirsan golaha hoggaanka siyaasadda ee Suudaan ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu aanu aqbalaynin dhexdhexaadin kasta oo ku saabsan xuduuddaasi maadaama buu yiri aanu jirin khilaaf xuduudda ka jira oo dhexdhexaadin u baahan isagoo intaa ku daray in xuduudaha Suudaan la leedahay dalalka jaarku ay calaamadsanaayeen
tan iyo 1902 dowlad walibana taqaano xuduudaheeda suudaanna aanay ka tanaasunaynin dhul ay leedahay. نحن لن نستجيب لأي وساطة تتحدث عن نزاع على الحدود، لأنه ما في نزاع على الحدود. الحدود ما بيننا وبين أي دولة أخرى مرسمة من 1902، وكل دولة عارفة حدودها وعارفة مساحاتها وعارفة نطاق حركتها وحدود الدولة الثانية. wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan Cumar Qamradiin oo xilkaasi haya oo shir jiraayad magaalada Khartoum kula qabtay dhigiisa dalka Britain ayaa waxa uu sheegay in Suudaan ka shaqaynayso dariiq diblomaasiyadeed oo lagu dhameeyo khilaafka ka taagan xuduudda ay la leeyihiin Itoobiya. madaxweynaha Suudaan Cabdifataax Burhaan oo sidoo kale ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa hore waxa uu soo sheegay inaanay doonaynin dagaal ay la galaan jaarkooda Itoobiya, laakiin aanay bagcad dhulkooda ka mid ah cid kale uga tanaasuleynin. arrinta in la xuso mudani waa inay dowladnimadii Itoobiya ee guunka ahayd siyaasad ahaan ku soo aartay gobolka ah, gaar ahaan dalalkii khilaafka biyaha Niilku kala dhaxeeyay ee Suudaan iyo Masar, oo ay haatan Itoobiya oo ka dharigsan inaanay lahayn dhulka xuduudda ah ee la isku hayo ay haddana dhulka sheegashadiisa iyo eedeymaha ku saabsan inay qabsatay Suudaan ay u adeegsanayso xeelad diblomaasiyadeed oo ay eedeymihii labada dowladood daba sideen ee dhaamkeeda ku saabsanaa ku bedeshay eedeymo ay iyadu ku sheeganayso in Suudaanna dhul ka qabsatay, Masarna ay dhabarka ka taagan tahay oo ku taageersan tahay. sidaana ay Masar iyo Suudaan haatan ku yihiin kuwo la eedeynayo oo wax laga tirsanayo, halkii ay markii hore Itoobiya hareereysnayd ee iyada lagu eedeynayay inay ka baxday heshiisyadii qaybsiga biyaha Niilka. haatanna laba ilaaway sheekadii biyo xidhanka Itoobiya oo ay xiisada laga hadlayo ama laga hadli doonaaba tahay dhulka beeraha ku habboon ee Fashaqa oo ay Itoobiya golo walba la taagan tahay in dhulkeedii la haysto. waana fursad marla araga oo ay ka faa'iideysan karaan dowladaha gunta dheer ee soo jireenka, iyadoo inkastoo ay Masar lafteedu muddo dheer dowladnimo haysatay ay haddana ahayd wadan mar walba cid kale ay ku soo duulaysay oo qabsanaysay tabeetana qarniyo xukumaysay. allahayow cadiimow casiisow jabbaarow rabbigii candhuuftiiyo cadyar naga abuurow kaan caabudnaayeen ciidda ugu sujuudnow caam ahaan adduunkii cudur baa haleelo cududda iyo xooggii hub caddaanu haysto laysaga cabsiiyiyo culimmadii aqoontiiyo colkii saynisyahankii cilmi baadhayaashii xag kastaba u cararo weli way cakirantee cadaab iyo jannaalow cirdaroorshihiiyow carradoo mid dhimatee dibisoo cagaarshow carruur koryihiiyow risac cayimihiiyow cidduu raba u buuxshow calaacalaha taagnay caafimaad sareecana nagu caymi eebbow.